way jirtay in safarkii Mombasa ay yarasan bir raxato ay dhacday abdominalka ama caloosha ay wax ka gaareen Djibouti qalin dhinaca caloosha ay ku gasho xamiitida laga saaray runtii waxa aad ugu taagnaa oo dhameystir naga sugaya guddigii ololaha hooyo badbaadi hal qoys oo ay u arkaysay wax ay janno ku mudan karto oo ay u arkaysay wax badbaadadeeda ay ku jirto oo ay u arkaysay run ahaantii 13 cishay waxay ku ururisay $33,000 farax adiga iyo baada Soomaali Cable oo mahadsantihiin waxaan joognaa hooyigii ay Muqdisho ka deganayd wasiirkii wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadija Maxamed Diiriye oo saacado ka hor ku geeriyootay magaalada Djibouti ee xarunta waddanka Djibouti sidaad sheegtayba 7 sano ugu dambeysay ayaan la shaqeynayay wasiirka waxaan kala howl bilaabay wasaaraddii dhalinyarada iyo isboortiga wasaaraddii gargaarka ayaa la maray wasaaraddii haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha hadda kala shaqeynayay qofka ugu dhow shaqo ahaan ayaa ahaa marka loo fiiriyo dhinaca la talinta dhinaca xogeeyada gaarka ahaa in practicalkeeda gaarka ahaa runtii maalmihii ugu dambeysay si adaga u wada shaqeynaynay wasiirka wax ka badan 15 safar oo xiriira oo saacado ama maalin qura ay u dhaxaysay ayay gashay oo runtii ay ugu qidmeynaysay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed oo ay markaa wasaaradda ka haysay runtii waxa cajiibka waxay ahayd waxay ku celcelinaysaa nasiina waqti dheer u baahanahay shuriye commitment yaa wada galnay howlaha aan soo gabagabeeno habeenii maalin jiif ma jiro anoo 60 jir ah shaqeynaya iyo ereyo kale ayay nagu dhiirigelinaysaa aniga iyo kooxda farsamada runtii nasiinada dheerna haddii hadda markaa la fasiro waxay u ahayd qadartaas oo ma aysan u dareensaneen sidaas laakiin iyadu waxay mar walba ku celcelinaysaa inay nasiino dheer gali doonto maalmihii ugu dambeeyay oo December howlaha la soo gabagabeeyo marka laga hadlayo wasiirka waxa ay soo qabatay runtii waxay dhalatay 2 Abriil 1964 waxay ku dhalatay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho da'da 60 sano ayay ku jirtay waxay kamid ahayd 6 baarlamaan oo dalka soo maray 20 wasaaradood ayay ka soo kala noqotay wasiiru dawla wasiiru ku xigeen iyo wasiir buuxa intaba haddii la yiraahdo wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxay dib u soo celisay garoonka ciyaaraha Muqdisho hadda u diyaarsan martigelinta ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyada ayaa sabab u ahayd waxay kala waqtigii wasaaradda gargaarka ay hirgelisay xarun weyn oo wasaaradda gargaarka loogu talagalay inay ku shaqeyso xaruntii gurmadka qaranka ee New York hadda waxay taariikhda iyada oo buddig u ah oo bilow fiican ah oo wajiga labaad lagu jiro ay geeriyootay wasaaradda haweenka waa taariikhda markii ugu horeysay oo wasaaradda haween dalkan laga hirgelinayo runtii waxa ka go'aneed meel walba iyo goor kasta iyo si kasta ay dawladnimada ugu shaqeynayso wax cusub inay soo kordhiso runtii waxa aad ugu taagnaa oo dhameystir naga sugaya guddigii ololaha hooyo badbaadi hal qoys oo ay u arkaysay wax ay janno ku mudan karto oo ay u arkaysay wax badbaadadeeda ay ku jirto oo ay u arkaysay run ahaantii 13 cishay waxay ku ururisay $33,000 dad badan anfariir ayay ku noqotay ururintu way socotay in la gaaro dad u badan haween iyo caruur oo dowlad goboleedyada dalkii gobolka Banaadir ku dhibaataysan ayaa ka go'need runtii hal iyo laba kuma koobi karo waxaan ka dhaxlay waxay ahayd way aragnimo waxaan ka dhaxlay waxay ahayd dad jaceyl waxaan ka dhaxlay oo aan ka xusi karo oo haddii aan nafta qaba buug aan ka qori karo waxay tahay sida dalkan iyo dadkan ay u jecleed shaqeynay uga qabatay uga go'need 6 caruura uu daahiro ugu yar yahay ayay ka tagtay Allah u naxariisto kitaabkeeda midigta Allah ka siiyo rabbi raaliha ka noqdo wasiir Khadija Maxamed Diiriye runtii xanuun maanta shalay ku soo booday wasiirka ma jirin hadduu qof karti leeyahay hadduu qof dulqaad leeyahay haddii qof ay ka go'an tahay inuu dalkiisa qarnimadiisa u qidmeeyo iyadoo xanuunsan ayay maalin kasta waddanka u shaqeynaysay way jirtay in safarkii Mombasa ay yarasan bir raxato ay dhacday abdominalka ama caloosha ay wax ka gaareen Djibouti qalin dhinaca caloosha ay ku gasho xamiitida laga saaray laakiin qof maalin xanuun shaqo u joojiyay ama uga istaagay ma jirin guwaabada ama ereyga ugu weyn isticmaali jirtay waxay ahayd anoo 60 jira oo hadduu qof xanuunsan yahay aan xanuunsanahay hadduu qof itaalkiisu u liita aniga aan ahay miyaad idinkoo dhalinyaraha istaagaysaan miyaa idinkoo dhalinyaraha inaad iga daba martaan aad ku fakraysaan runtii ereyadaan iloobi karin nolosheeda inta ka dhiman ayay tahay marka wasiir Khadiija maalin ama laba ay xanuunsaneed ma jirin qof karti iyo dulqaad iyo geesinimo iyo ku dhac iyo dadnimo rabbi ku manaystay ahayd waa mahadsantiin baada Soomaali Cable bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeegga mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya
in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeegga e-Payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.